arinta firdhiyada waa xaqiiqo way jirtaa waa la soo weeraray firdhiye qaarajiya baa liisay markaa dil maxaan ku qorshaysan budde ka badbaaday ma fahantay maxaad ka ogtay dilka qorshaysan ee lala doonayay ama lala beegsanayay madaxweynaha SSC Khaatumo ee firdhiye sir badan ayaa dabada timi haddaba si aan kula wadaago muuqaalkan like saar subscribe tana saar muuqaalkan iyo codkan ila dhageyso oo waliba wixii nuxurka ama wixii fikirkaaga qaybta commentiga igula soo wadaag bal ila daawo muuqaalkan arinta firdhiyada waa xaqiiqo way jirtaa waa la soo weeraray firdhiye qaarajiya baa liisay markaa dil maxaan ku qorshaysan budde ka badbaaday ma fahantay waan gartaa sababaa loo dilay dee kolley ma garan karna dee maxaan ku dhahdaa ma Khaatuma loo diiday inuu sii wado oo reer Khaatuma doonaya inay Somaliland awalba wahaayeen in dib ugu soo yeemee dadkii baahi baa hayso iyagiiba waynayeen iyagiiba istilayeen meeshii waxba lagu maxaad noogu haysaa meesha baa la leeyahay aad noo hor fadhida meesha maxaad noogu haysaa marka deji horena uu kaxan waayay dibna uu kaxan waayay marka wuxuu taagan yahay firdhiye meel go'ay suuqa ku soo qabanaya balkan firdhiye wuxuu taagan yahay xarigeedii igaga celiyay ma fahantay ilaa iyo xarigeedii igaga celiyay dunidina wixii way isku soo koobtay horta firdhiye arrinka loo dilay waa iska cadahay firdhiye maamul baa loo dhiibay maamulkii maxaan ku dhahdaa nimanka dhumaanta way ku kala qaybsan yihiin qaar waxay doonayaan inay Puntland raacaan qaar waxay doonayaan Somaliland inay raacaan qaar waxay leeyihiin dowladda federaalka ee aynu maamul goboleed toos aynu caadi noqono wixii maamul goboleed uu noqon weydii tulooyinka la soo kabkabaya qaar sanaadka imanayaan qaar sooliyihiin qaar togdheer yihiin markii shuruucdii la eegay Soomaalida bay dhaqan noqoto iyo hadii dowladda federaalka ee dugsuurkeeda ay noqotaba wixii dasad aragteen ويسقبسن ويدي ما فهمتي marka waxay isugu soo baxday isugu soo ururtay laba madax oo Somaliland aynu Somaliland beenahay in bismillah nahno iyo inaga daayo Somaliland inaga laabo oo aynu qoladan hartay waxa la leenahay dhowr iyo 10 xildhibaan aynu ku leenahay madaxweyne ku xigeenka aynu kuleenahay aynu qabanay qolada ma jirteen iyo garanaysa qolada ma jirteen waa tanteedina kala barado kurul lahayn kara way lagu go'nay waan meesha barado kul way isku yaacday haye marka firdhiye waxa la doonayaa in la qaarajiyo maadaama doonayo inuu maamul inuu maamul meesha ka sameeyo qolada de kulli ma jirteen inuu baxaragu soo miiqaysa ama iyaga gudahooda laga yaabaa inay dareeyaan marka kulli saas oo waqti laakiin wuu soo bixi doonaa kulli runta de oo iska ogaan doonaa insha Allah taala waan la yaab horta qoladan waa qolo aad u caban yani waxay maxana tani waa la falanqeynaya waa ina xamishaan xamso soo dhawow waan ku siinayaa xawo ma qaata ma waan ku siinayaa sugan kaasa ka horeeya waan salaamay oni idoorku falanqada ma yaqaanaan hadda iyagu hadday yar helaan saasay ugu soo yaacaan falanqeeyaan idoorkina iyagu is falanqeeyaan bay doonayaan maanta sida loo falanqeynayo waa iyaguna kala hadli karayaan ilaa uu manihin maleeshiyada wax weeyaan dadkan wax weeyaan meel dawladda ka jirta iyo marka horba deegaana asbar badhigayo meel de wax weeyaan laascaanood weyn ognahay 3 maalmood ugu dambeysay dagaal baa ka socday oo qaad baa la isku dilayay oo imika wax weeyaan durrad waa lagu dhintay wax weeyaan ku dee hawla iskaga dhigay deeno weeno garoonka wax weeyaan rag badan baa ku kala dhintay nimankii jaacsiyaad baa meesha ku laandheereenayo oo wixiiba yaa way dhacday oo iyada wax weeyaan shalayna waa la isku laayay oo iyadana qaad la isku laayay caawana waxa weeyaan waa la isku weeraray imika tirada 3 nin oo jaamac Naaley Axmed Ayo baa dhintay iyo nin jaamacsiyaada inta tirada la og yahay dhaawacna waa bad laakiin qoladani dhibta haysata waxa weeyaan iyagoo madhay oo waxa weeyaan de waxa weeyaan dadkii xawaal ay ku guureen bay waxa weeyaan qarinayaan waxa weeyaan aan de tig laga soo siinayno wax ay leeyihiin qarinayaan dad dhintay wax weeyaan aakhira qabtay adduunkana de qof dhintay ba waxa ka aakhira qabtay de wax sabab loo qariyaana dib ma jirtoba marka ninka firdhiyay eeriyadiisa caawo weerar baa lagu qaaday gurigu deganaa xaaladu faray ka baxday waxa weeyaan caawo dhulbahante jifi waliba waxa weeyaan meel bay fadhidaayo waxa weeyaan oo la badhaansan oo la ugaarsan ilaa hargeedii naga celiya meeshaan waxuma yaalaan waxa weeyaan xaaladu waa nimanka way ku xun tahay
weli door waxba ka hadlayaan dee waxaynu ognahay oo xaqiiqadeedii aynu hayno ayaa la doonayaa in inaga leenooga dhigo la yiraahdo la sheexdo sidii dad aan waxba ogeyn dee u warramadee oo marba halkan ay noo soo qabsanaya la leeyahay waa dawlad iyo waa caynkan iyo wax noocaas marka wax weeyaan war laascaanood waa xirdhi habeen maalin aan lagu dhiman ma jirto maalin aan lagu dhiman ma jirto shalay tudurad wiinkii waa wixii ka dhacay baroortii dhacaysay iyo waxa weeyaan maradii cadaydii la odayaashu tuurayeen markii la isku dhamaaday waxa weeyaan wartaliya xidido ay lahayd xaaladdu waa reer hebel ay taagnay waxay kaga bilatay iyadoo maalin walba laascaanood xirdhiga ayay maanta waxay kaga bilatay hargeysa la isku laayay hargeysa burca waa kan war hargeysa ninba laba ninba istilay wax weyn adduunkana way ka dhacday laba qof way istilaayo anagu waa la istilay kii la dilay kii kalena waa loo dilay wax weeyaan ee uu xiran yahay halkaas uu ku xiran yahay wax weeyaan waligeed laba qof istilays hargeysa iyo tuulada laascaanood bay isla tardhigaya dhiigta noqotay hebelka hebelka lagu dilay meel heblaayo dee haddii la dilay haddii waxa weeyaan dama accident uu iska dhaca qof waa dhintaa waa accident buu dhaca habad baa ku qaraxda qof baa dili kara damay dawladda ka jirto haddii laba qof isku qaldamaan oo wax ila bilaadanku waa bilaadan wax weeyaan waa la isku dhacaya markay isku dhacaan wax weeyaan waa qasab wax weeyaan dawladda wax weeyaan waxa weeyaan kuwii wax kaliya oo ku jeelasha ku jira waxay marayaan nidaamkii sharciga ah bay marayaan laakiinse bal meeshan xiradhiigta noqotay ee waxa weeyaan dadkii dhamaaday iyo haddana qof walba hantaa aan laga soo tigsiin war dagaalkan dhacaya eenu aragnay ee waxa weeyaan maalin walba lagu dhimanayo dadkan maxay xoolaha dadka meel ilaahay hadda firdhiya waa lala cararayo meel uu joogo raqiyo ruux xitaa istii lama hayo ma sha Allah assalaamu calaykum وعليكم السلام إلى السعود والسلام يا رب هاتو قولكم ما فيديو يا واتشوقي كرنا ديك بس كده إنه مايا إج لما عيتما يو توب جنوا كا لماذا لو حرتي سوها اللي كده مايا حرواتي لكن توب جرا عندي كمان بيرسو توب جوا كا ميرسان بلي كاد هرت حمسة مودة ما عبد الكريم وحمسة مودة ما هرت إج وحندين شيء يقولك واحد wax afxuma leehdo ama ay leehdana ma jirto caawa arinta halka saaran anagu maanu soo qorin maanu keenin reelaas amood baa soo qoray sida ay tahay in looga hadlo un baa la doonaya wixii marba jirana waa la falanqaynaya waxaan sawirka u soo qaatay inaynu falanqayno marka tawga dhinaca looga badegayo marka xamso soo koob waad aragtaa weerar baa yaa dhinac walba ka soo waxooyaan ila meeshan anagu meeg horta meeshan meeg ma qaadan anagu wax jiro xaqiiqada aan sheegayna wax cad oo dhacay wax weyn dagaal dhacay hebel la ku dhinteen oo la garanayo malaade wax weeyaan dadka qaar waxay u arkaan war samballa maaha waxa dagaal ka dhacay caawa tirada ku dhimatayna waxa weeyaan la og yahay halka ku dhimatay markaan waan soo dhigaya ku socda